سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kasto aad joogtaan iyo waliba si walba muuqaalkeena uu idin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha oo maanta aan ku soo qaadan doono kooxda Arsenal oo bayaan ka soo saartay difaacoodii Laurent Koscielny ka gadal markii uu ka soo horjeestay in kooxda uu u raaco cariga Mareykanka waxa kale barnaamijkeena maanta aan ku qaada dhigi doonaa kooxda Barcelona oo u baahan in isbedel mugle ay ka samayso saddex boos suuqa xagaygan kooxaha Ajax iyo Juventus oo weli isku haysta xaalka Matthias de Ligt kooxda lagu magacaabo Manchester United oo weli suuqa ugu jirta Harry Maguire iyo Milinkovic Savic kooxda Real Madrid oo go'aan cad ka gaadhay xaaladda Neymar Jr iyo abaalmarinta Ballon d'Or oo ilaa haatan la yahay magac loo bixiyo Rivaldo oo sheegay xidiga mudan inuu ku guuleysto abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan dunida qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena ugu horeyn hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho adiga oo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hana naga iloobin in aad like saarto muuqaalkan si uu u noqdo mid hela macaamiil badan oo daawata mahadsanid ugu horeyn aynu ku hormarnay kooxda Arsenal ayaa xaqiijisay in difaacooda Laurent Koscielny uu diiday in kooxda uu la safro cariga Mareykanka halkaasi oo ay ka bilaabi doonaan socdaalkooda xagaygan iyaga oo ka qayb gali doona tartamo saaxiibtinimo warbixin rasmi ah oo ay soo saartay kooxda Arsenal ayaa lagu yiri Laurent Koscielny waxa uu diiday in uu u safro Mareykanka isla markaana uu ka qayb noqdo socdaalkeena xagaygan waxaan aad ugu niyad jabsanahay go'aanka uu qaatay Laurent Koscielny taasi oo sida caadada ahayd ka soo horjeeday awaamirta kooxda Gunners waxaan rajaynaynaa in arintan xal laga gaari doono waqti xaadirka kan hadalka intaasi ma dhaafsiin doona ayaa lagu yiri bayaanka kooxda Arsenal Koscielny ayaa waxa uu ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay ee qandaraaska kooxda Arsenal waxaana uu diyaar u yahay in si xur ah ugu dhaqaaqo guud ahaan qalcadda Fala Emirates waxaana dalabyo badan uu ka helaya horyaalka Ligue 1 Faransa Laurent Koscielny ayaa kooxda Arsenal waxa uu ku soo biiray sanadkii 2010 isaga oo u ciyaaray ugu yaraan 29 kulan xilli ciyaareed waliba oo kamid ahaa 9 xilli ciyaareed uu joogay waqooyiga London guud ahaan Koscielny waxa uu kooxda Arsenal u saftay 353 kulan inkastoo uu yahay difaac haddana waxa uu dhaliyay 27 gool waxa uu kula guuleystay 2 FA Cup muddadii uu joogay kooxda Arsenal laakiin waxa uu awoodi waayay in uu ka caawiyo kooxda Gunners ku guuleysiga horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska hadii Koscielny uu ka tago kooxda Arsenal waxay ugu dhignaan doontaa in uu la qaato xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay mid koob la'aan ah ka gadal markii Unai Emery kooxda uu hogaamiyo guuldaro ay kala kulmeen kooxda Chelsea finaalkii Europa League dhinaca kale tartanka loogu jiro abaalmarinta sanadka 2019 ee Ballon d'Or ayaa ah mid shaki weyn uu ku jiro sanadkan iyadoo ilaa haatan la ogeyn xidiga ugu cadcad ee ku guuleysan kara waxaana la yahay abaalmarintaasi magac loo bixiyo xidigaha sida weyn loogu badinayo in ay ku guuleysan karaan tartankan waxa ay kala yihiin Lionel Messi oo La Liga kula guuleystay kooxda Barcelona sidoo kale waxa uu dhaliyay wax ka badan 50 gool tartamada oo dhan Cristiano Ronaldo oo 3 koob oo kala ah Super Cup Italian Serie A iyo waliba koobka UEFA National League kula guuleystay kooxdiisa Juventus iyo xulka qarankiisa Portugal ayaa qayb ka ah xidigaha loo saadaalinayo waxa kale qayb ka noqonaya xidigaha kooxda Liverpool ee kala ah Van Dijk Mohamed Salah iyo Sadio Mane kuwaasi oo Liverpool ku hogaamiyay in ay noqoto ku guuleystayaasha tartanka Champions League halyaygii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil Rivaldo ayaana saadaaliyay xidiga noqon kara ama u qalma inuu ku guuleysto laacibka ugu wanaagsan dunida waxaana uu yiri fikir ahaantayda Messi ayaa u qalma ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or sanadkan marka loo eego wax waliba uu qabtay kuma guuleysan tartanka Champions League laakiin waa abaalmarin si shakhsi ah waxa uuna u qalma ku guuleysiga abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan dunida ayuu yiri Rivaldo
geesta kale xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa si aad ah wuxuu u doonayaa in guud ahaanba uu isaga tago masraxadda riyada ee Old Trafford inta lagu guda jiro suuqa xagaygan wuxuuna si cad had iyo jeerba u tilmaamaa in uu doonayo in uu galo tartan cusub. Paul Pogba ayaana raadinaya wadadii uu ugu tagi lahaa kooxda Manchester United. Jariirada caanka ah ee lagu magacaabo Leighton Sport ayaana waxay tilmaamaysaa in Paul Pogba uu mari doono wadada Antonio Griezmann kaasi oo diiday in tababarka uu la qaato kooxda Atletico Madrid. Paul Pogba ayaana diidi doona waqti xaadirka kan ee wixii ka dambeeya in tababarka uu soo xaadiro kooxda Manchester United si United ugu qasbo in ay kaga iibiso kooxaha Real Madrid iyo Juventus uu doonayo midkood in uu ka qayb noqdo wiilka reer Faransa ee Paul Pogba. wararka intaasi waxa ay ku darayaan sida ay ogaatay jariirada Ice ee ka soo baxda cariga Spain. Real Madrid ayaa go'aan kama dambays ah waxay ka qaadatay saxiixa xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar. in muddo ah ayuu madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez wuxuu ku fikirayay sidii uu ku soo xirigelin lahaa laacibka kooxda Paris Saint-Germain, laakiin haatan go'aanka waa uu bedelay wuxuuna u weeciyay dooqiisa Kylian Mbappé maadaama Neymar haatan uu yahay 27 jir isla markaana ay haysato dhibaatooyin ka baxsan gudaha garoonka. Real Madrid ayaana doonaysa in dhibaatadaasi gabi ahaanba ay u soo weecin magaalada Madrid ee caasimadda Spain. Kylian Mbappé ayaana ah laacib sumcadiisu ay tahay mid nadiif ah, sidaas darteed Real Madrid ayaa waxay ku fikiraysaa in dooqeeda gabi ahaanba ay ka weeciso Neymar una weeciso Kylian Mbappé oo xulka qaranka Faransiiska kula guuleystay Mundiyaalkii dunida. madaxweynaha kooxda Real ee Florentino Perez ayaana adeegsanaya siyaasad cajaa'ib leh, siyaasadaasi oo noqonaysa in xilli ciyaareed kastaba xidig weyn uu keeno garoonka Santiago Bernabeu. waxaana waqti xaadirka kan kooxda Real ay ku guuleysatay saxiixa xidiga reer Belgium ee Eden Hazard. Paris ayaana waqti xaadirka kan wuxuu ku fikirayaa in dooqiisa iyo rajadiisa ku qotanta helitaanka Kylian Mbappé inuu ka dhigo ka hor xilli ciyaareedka 2021. Manchester United ayaa dhankeeda waxay qarka u saaran tahay in ay bixiso 72 milyan oo gani oo ay ku iibsanayso xidiga qadka dhexe ee lagu magacaabo Milankovic Savic sida ay qortay jariirada Sky Sports fadhigeeduna yahay cariga Talyaaniga. kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga ayaana 24 jirkan waxay ku qiimeynaysaa adduun lacageed gaaraya 90 milyan, halka kooxda Manchester Unitedna ay diyaar u tahay inay bixiso 72 milyan. halkaasi ayuuna khilaaf yar ka jira. Ole Gunnar Solskjaer ayaa laga yaabaa in waqti xaadirka kan uu u baahdo xidig uu ku xoojiyo xulkiisa qadka dhexe haddii Paul Pogba uu ka tago kooxda Manchester United. xidiga kaliya oo ay u arkaanna waa xidiga lagu magacaabo Milankovic Savic oo doog koobaad u noqonaya kooxda Manchester United. James Rodriguez ayaa isna wuxuu doonayaa inuu u wareego kooxda Napoli, laakiin kooxda ayaa weli heshiis la galin kooxda Real Madrid sida uu sheegay gudoomiyaha kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga ee lagu magacaabo Aurelio De Laurentiis. ciyaaryahanka reer Colombia ayaa horay Carlo Ancelotti wuxuu kala soo shaqeeyay kooxda Los Blancos Bayern Munich. haatan De Laurentiis wuxuu xaqiijiyay in kooxda reer Talyaani ay soo gabagabayn doonto ololaha ay ku doonayaan wiilka reer Colombia ee lagu magacaabo James Rodriguez, halka Juventus iyadana kor ay u qaaday darabkii ay ku doonaysay Matthias de Ligt ayaa bartilmaameed fog u ah kooxda Bianconeri ee ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga, waxaana qiimaha ay ka dhigeen 67 milyan sida laga soo xigtay wargeyska Telegraph. De Ligt ayaa horay wuxuu u ogolaaday in heshiis shakhsiyadeed ugu wareego kooxda Turin, laakiin Ajax ayaa ku qiimeynaysa xidiga heerka caalami ee xulka qaranka Holland adduun lacageed gaaraya 75 milyan oo gani. kooxda haysata horyaalka Serie A Talyaaniga ee Juventus ayaana rajaynaysa in heshiiskaasi ay soo gabagabayso isla toddobaadka kan inta lagu guda jiro. kooxda Arsenal ayaa iyadana waxay diyaar u tahay inay bixiso 40 milyan oo lagu daray 3 ciyaaryahan si ay u helaan weeraryahanka kooxda Crystal Palace ee lagu magacaabo Wilfried Zaha. kadib markii ay arkeen dalabkii hore oo laga soo diiday, Gunners ayaa diyaar la ah Callum Chambers, Mohamed Elneny iyo sidoo kale laacibka lagu magacaabo Jenkinson si ay u helaan laacibka Crystal Palace iyo xulka qaranka Ivory Coast ee lagu magacaabo Wilfried Zaha.
ugu dambeyntii kooxda Barcelona waxay diyaar u tahay in isbedel mugle ay ku samayso 3 boos oo muhiim u ah ka gadaal markii dulduleela badan lagu arkay xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday kooxda Barcelona inkastoo la xiriirinayo xidiga waaweyn haddana tababaraha lagu magacaabo Ernesto Valverde wuxuu dalbanayaa in 3 boos bedel loogu helo kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Barcelona kooxda Blaugrana ayaa u baahan difaaca bidix si uu la tartamo Jordi Alba sidoo kale waxay u baahan yihiin in ay xoojiyaan difaacooda dhexe oo kaliya waxa lagu ilaaliyaa ninka lagu magacaabo Samuel Umtiti labada laacib ee kala ah Gerard Piqué iyo sidoo kale Lingard ugu dambeyntiina booska kale oo ay u baahan yihiin in ay buuxiyaan ama booska saddexaad ayaa wuxuu noqonayaa booska Luis Suarez oo waqti xaadirka ka noqday xidig da'da ay kuleelayso inkastoo Barcelona ay u baahan tahay soo xirigelinta laacibka reer Faransa ee Antonio Griezmann guud ahaan barnaamijkeena ciyaaraha maanta inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa saaxiibayaal waxaana idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman